madaxweyne Erdogan 15 sannadood ugu dambeeyay wuxuu meel kasta uu tago iyo madal kasta uu tago uu ka jeedinayo khudbad uu ku weerarayay madaxweynaha dalka Masar Abdel al-Sisi. waxyaabaha uu ku eedeynayna waxaa ka mid ahaa in marka koowaad al-Sisi uu inqilaabay madaxweyne si dimuqraadi ah loo soo doortay oo uu yahay dictator. marka labaadna inuu yahay nin khiyaanoole ah oo khiyaameeyey madaxweyne saaxiibkii ah oo ku aaminay inuu ka dhigo taliyaha guud ee ciidamada dalka Masar. markaas labaadna uu yahay nin khiyaanoole ah oo la aamini karin. waa marka saddexaade wuxuu ku eedeynayay Erdogan al-Sisi inuu al-Sisi dilay 600,000 oo ka mid ah shacabkii reer Masar oo uu yahay gacan ku dhiile gacmihiisa ay ka qoyan yihiin dhiiggii dadka shacabkiisa ah. 15 sannadood ayuu Erdogan eedeymahaas u soo jeedinayay al-Sisi, laakiin ugu dambeyn waxaan arkaynaa Erdogan oo intuu soo duulay yimaadee Qaahira gacan qaaday ama gacanta geliyey gacmihii uu shalay tole ku sheegayay inay leeyihiin dhiiggii reer Masar. arrintaas markaa waxay ku tusaysaa munaafaqada Erdogan. Erdogan waa nin aad iyo aad munaafiq u ah, sidoo kalena dantiisa yaqaano oo jaanis gala, waana siday tahay inuu noqdo qof kastoo madax in uu ka shaqeeyo danta ummadiisa iyo dalkiisa. dunidana maanta ku noolnahay dalalka waxa isu keena isu soo dhaweeya waa dan iyo interest. waxa kala fogeeya dalalkana waa dan iyo interest. Somaliland iyo Israa'iil maanta waxa isu keenay waa dan ay Somaliland Israa'iil ka dhex aragtay iyo Israa'iil dan ay Somaliland ka dhex aragtay. dan baa Somaliland iyo Israa'iil maanta saaxiibo ka dhigtay. dantaa saaxiibada ka dhigtay maanta Britain cadowga ka dhigi kartaa moogta oo way ku kala degi karaan dantaas oo saaxiibtinimadooda maanta intay leegtahay in ka badan bi Britain cadowtinimadooda leekan karta. sababtoo ah siyaasadaba saas ku dhisan. saa darteed ha malaysan waayin ama waxaan macquul ahayn ha u qaadan in uu Erdogan Britain Hargeysa ka soo dego oo madaxda Somaliland la kulmo isagoo sida warqadii aqoonsiga Somaliland uu ka dalbado saldhigii military oo Somaliland xeebaheeda laga siiyo suudanihiisa istiraatiijiga halka ugu yaraaso. sababtoo ah Erdogan danta uu ku qabo Somaliland ama dalka Turkigu danta uu ku qabo Somaliland ayaa ka badan tay Somaliland ay ku qabto dalka Turkiga. marka waxaan rabaa inaad siyaasadda soo fahantaan. siyaasaddu waa interest iyo dan. meesha dantaadu ka gasho waa laga daba galaya. meesha ayna aanad wax dana kala hayna waad iskaga fogaanaysaa oo iskaga tegaysaa. marka that's how politics works. It's all about interest.